Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ku bilowday qaraxyo xooggan oo goor dhaweyd ah Al-Shabaab ay ku qaaday gudaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Qaraxyadan oo laba ahaa ayaa la sheegay in loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka. Weerarkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday xerada ADC ee degmada Baardheere, halkaasi oo ay sidoo kale gudaha u galeen dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab. Dagaal foolka fool ah oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee gudaha u galay xeradan ayaa haatan ka socda gudaha degmada Baardheere sida ay inoo sheegeen ila wareedyo dadka deegaanka ah. Xerada la weeraray ayaa waxaa tababar lagu siinayay ciidamo gaar ah oo loo diyaarinayay xoreynta deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u cakran, mana cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan qaraxyada ku bilowday oo ay mas'uuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab.